السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخيارتا إيه أهل شرفك لمان والسلامة هي برشاد مسلمين تا خاصة أمد الصوماليات خاصة إذا عدد دلشر أو أتاجن همين يومالين برشاد كحقفتك هذا وحي دينتو ذا يدوية ذا قصية قيبت ورقبت كميديها بانسي قاصة السلامة هي ننك عدك قد بنا هي أيان له عبد الله الجامع ضمانه وسلامة هي بهذا دلشر waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed inaan u soo gudbiyo taariikhdooda islaamka ee la dhahay hijriga maadaama ay shalay dhalatay bishii Muharram ee la dhihi jiray Soomaalidu isaka ay dhahaan bishaas baan rabaa inaan insha Allah soo gudbiyo taariikhdeeda iyo bilaha mushaarka aan ku qaadano waxay ku kala duwan yihiin iyo mid walba meeshay salka ku hayso taariikhda هجرية أما قمرية هي المدة التي هاجر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ومدة النبي محمد وكتجي مقالة مكة يا هجرية لها آذينا أنا الصعدالي مقالة مدينة هذا وكدو جيهي سنة كأيامه سو وصدح بقول إيا كنتن إيا أفر مع المود وأمرك لقتري حق هجرية maadaama 6 bilood oo sanadka kamida ay ku dhamaato 10 ama 29 6 kamidana ay ku dhamaato 30 waxaan samaynaynaa intaan nasuusta cadeynaysa aanan u gudagelin iyo farqiyada u dhaxaysa taariikhda miilaadiga ama masiixiga la dhaho iyo tan hijriga waxaan samaynaynaa waa qeexayna waxa lagu qeexaa hiya muddo lati سنة القمرية هي المدة التي تكمل القمر دورته في منازل السنة وضيح كامل قروبيسا دوريسيا وريقيسا وكو وريقها يوم مناسيسا سندك وعلمية طبعا بلاد وكو وريقها ولا ليال هجرية وحاد دليل إلهي آيات كيسا أوليه إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 الحرم إلهي بليهيسو والله طبعا سيدا أسنا وحي وقلت الله اللوح محفوظك في كتاب الله بكت الله يوم خلق السماوات والأرض سماضي أرض مركا الله أبوري أي كتالي waxaa kamida sanadka 4 bilood oo xurmo leh waa bishan Muharram la dhaho ee bisha islaamka ah iyo bisha Rajab la dhaho oo ka horeysa Shabcaan iyo Dhul Aqdi iyo Dhul Hajj 4 bilood waa 4 bilood oo xurmada leh cibaadada iyo amalka la qabto way ka qeyr badan yihiin maalmaha kale walaalayaal hay'ay nabiga wuxuu leeyahay afdalu siyaam بعد رمضان شهر الله المحرم الصوم وحا اوغو فضل بدن يا خير سنه markii رمضان laga jaro inta kale waxa اوغو فضل يا خير بدن bisha la dhaho shawaal ee muharram soonkeeda la soomahayo 9keeda iyo 10keeda وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل صلاتنا وحا ugu fadli badan xagga thawaabka iyo khayrka sunnooyinka salaada la dhaho salaatul leyl maxay qofkiiba munaajaad la sameeyay ilaahay sida darteed baan waxaan loo jirin jamac iyo jamaaca in lagu tukado oo dadka tahajjudka sameeynaya taraawiixda cishaha markii la tukada ka bacdi u kacaya wax sharci ah iyo wax nasakh ay tahajjudkaas uu ku fadhiyo jamaca lagu tukanayo ma jirto waa arin iqtiraaciya oo cid looga dayday midna la arag bulshada waxaan leeyahay arintaas run ahaantii ha iska ilaaliyeen aayada quraanka waxaan ku xijinaynaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu nabigu leeyahay in zamana qad istadaraka
عن هيئته يوم خلق السماوات والأرض سبنكي وحو وريغي هيئدي يهنانكي لوغو تلقلي مالنتي إلهي وابوري سمد يا أرض السنة 12 سنتكو والبية طبان بلاد منها 4 الحرم وحا كتر أفر بلاد وحرماله ذو العقد وذو الحج والمحرم والرجب المضر حديث صحيح البخاري قال سداس إن سنة كل بية طبان بلاد يهي maxaan ku dhahaye afar bilood oo xurmadahan ay ku jirto oo cibaadada iyo camalka la qabanayo ay maaragtay khayr iyo fadli badan laga helayo taariikhdaas waxa qoray Sayyid Umar baa qoray maxaa yeelay nabiga wuxuu yiri in sanadku qarnigii uu yahay 100 sano inuu yahay nabiga hamiin salaada cishaha asxaabta kadib dhacay markaasuu yahay qofkii maanta nool 100 sano ka bacdi ma noolaanayo taariikhdaana waxa qoray Sayyid Umar markii nabigu ka soo haajiray magaalada Makka Madiinana yimid Sayyid Umar baa qoray taariikhdan وكتب عمر بن الخطاب بتاريخ الهجرة إلى أن تقوم الساعة إلا ساعة القيامة أي dhacay sana taariikhdaas waxay noqonaysaa mid diiwaan gashan oo shaqaysa ayay noqonaysaa laakiin bulshada islaamka ah oo malaayiin ka badan ayaa waxay dayaceen taariikhdoodii iyo banaanbaxeeda iyo soo dhaweynteeda iyo ka sheekaynteeda sidaas darteed ayaa taariikhda islaamku waxay hoos gashay dambaska meesha taariikhda gaalada satellite-ka caalamku uu warinayo oo ay noqotay bilo mushaarka lagu qaato sida Maarso, Febraayo, August, July, December ay noqoto oo taariikhda lagu qaado taasna waa ka sheekayn doonaa dadkii boqorada ahaa ee magacyadan lahaa meeshay ka soo jeedeen iyo waxay ahaayeen nabigu sallallahu alayhi wuxuu yiri ashharu haakada wa haakada wa haakada saddexda jeer gacanuhu nabigu isku geeyay waa 3 jeer oo min 10 3 jeer oo min 10 waxay noqonaysaa 30 maalmood sidaas ay bishu waxay u tahay 30 maalmood markii la leeyahay waa gardhalad la leeyahay ama kaamil bay ku dhamaatay nabigu xadiis kale wuxuu ku leeyahay ashharu haakada wa haakada wa haakada wadamma بعض أصابع على بعض gacnihiisa qayb kamid oo qaybta kale u dumay wuxuuna yiri waa 10 iyo 10 iyo 9 intuu farlaabay oo sanadku marka bilaha qayb kamid inay ku dhamaadaan 9 iyo 20 ayaa xadiisku nabiga noo cadeynaya salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxaan soo sheegnay aayad quraana iyo sunnad nabi ah waa adillada kulminaysa taariikhda islaamku inay tahay 12 bilood 12 biloodna afar kamida ay tahay kuwa xurmo leh oo camalada la qabanayo cibaadadooda ay ka qayr badan tahay kuwa kale dambiyaasha la galahayana ay hatta qada haday tahay laga dhigayo mid weyn oo kabiira ah dambiyaasha la galahayo sidaa darteed waxaan leenahay dadka colaada hurinahaya iyo dadka ku dhimanahaya iyo dadka taageerahaya kulligood dambiga way qaybsanahayaan way ku shirgoobahayaan way wada leeyihiin macnaha tawsiic ahaan iyo qayb ahaan baa loo qaybinayaa markaasna waa la siinayaa maxaan ku dhahay qayb baa loo siinayaa marka waxaan leenahay Allah naga dhaaf a'yaadu alladhi tahta as-sana ciidaha ku jira sanadka waa labo midna waxa weeyaan waa ciidul adha midna waa ciidul fitri labadaas islaamka ku jirta لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة نبي مركو سوق لي حديث كان يسورنا هي مقالة المدينة ولهم يومان يلعبان وحيل هايين لبما الموت أي عياران أي لهايين أي محان كلها هاي قمرة عبان أو نيكيان أو حيالا معاسفة يا منكرات كايديلان أي لهايين نبي مركو سوق لي وحي قد أبدل الله العيدين إلهي وحي إني بدل عيدهان خيرا منهما لبضوضا كوا كغير بدن حير عيدها هي وحي هاي نيروسك يا مهرجان نيروسك وحا ويان وبقردي دبك عابد جري وثنيين تاها
حلي نبي الله سليمان اللي حدا كنا سنة لقى شوقة يوحي كدم بي إلا حلي النبي النوح dadkii dabka shidi jiray ee dabka caabudi jiray wathaniyiinta ahaa weeyaan dabshidkan wuxuu ka yimid Soomaaliya meelo badan hadda way ka jirtaa dabshidkaasu mar caam ahaan loo shidi jirayna waa jirtaa marka waa dhaqan laga soo minguuriyay dadkii dab caabudka ahaa ee boqorada ahaa ee dabka shidi jiray xukumay waana kuwa 12 bilood ee Maars iyo August iyo maxaan ku dhahaayay Febraayo iyo January iyo Luulyo July August December October lagu sargooyay waa magacyadoodii iyo taariikhdii ayagu ay lahaayeen weeye sidaan loo lumin mushaarka lagu qaato magacyadooda taariikhduna aysan u lumin gaalada dabcaabudka ahayd sidaas waxay ugu sargooyeen in bilaha iyo maalmaha maxaan ku dhahay lagu sargooyo taariikhdii gaalada iyo dadkii dabka caabudi jiray maharajaankuna waxa weeyaan waa Christmaska gaaladu sanadkiiba ay mar fasax iyo faysta ay bixiso qamrada la cabo sinada iyo xumida iyo liwaadka ay maxaan ku dhahay meelaha maxallu diiniga u ah kaniisadaha la iskugu tago taa weeye marka labada ciidood baa ka jirtay mid koobaad maxaa la dhahaa Nayruus oo ka soo jeeda dadkii dabka caabudi jiray iyo boqoradoodii midna ka soo jeeda Nasaar iyo Yahuud maadaama Sayid Umar uu yiri اجتنبوا كديرادا اليهود والنصارى والنصارى اليهود كديرادا بو يري لبداس كديرادا في عيدهم كديرادا عيدودا يوم جمعهم مالمها اي كل ما هيان فإن السقط عرض اللي ينزل عليه ايغا كسو دغتا شعب الايمان وبهقوا ليهي سداسو قرهيا فتاوى التوحيد للنشر العلم النافعنا أصلا هو أقولها هي كتب رمضان وحديث سلا درادة مركا تاريخ هجرية وميل بلشدو أي آدي آد أي ماركتا أقول لي هذا هاي إن كشكيان علماء إسلام كأي أقومتي معرفة أوله دينته إن كشكيان سلا ضدك شعب كأ يبلشوين تجود أي لوجها قبتره aqoonta taariikhdooda iyo diintooda Abu Bakar baa soo galay xaafadda nabiga ayagoo ciyaalku ay ciyaarahayaan markaasna wuu canaantay nabiga wuxuu yiri ka har oo ka nahiyay iska daa maxaa yeelay inna kulla qawmin ciidun qolow walba iyo qoom walba waxay leedahay faysto iyo ciid wahada ciiduna tanaboodboodkan ay la boodboodahayo iyo xafladaha fantasiyada la dhigahayo waa ciidii islaamka iska daa Abu Bakarow taas marka waxay ku tusaysaa ciidaha iyagu inay yihiin kuwo aas ku leh sharciga islaamka ayado badan iyo axaadiis badan looga hadlay qaybta labaad asanatu shamsiya aw miladiya aw masiixiya نبي الله عيسى دلشديسي ayay ka bilaabataa maalmuhuna waxa weeyaan sanadkaas miilaadiga waa 365 maalmood tii horena waxay ahayd 354 maalmood marka 12 maalmood bay dheerta dheeraantaas iyo waqtiga kala badan waxa keenaya waxa weeye walaalayaal maadaama toddoba bilood oo kamida ay ku dhamaato 31 afarna ay ku dhamaato 30 bilna ay ku dhamaato 29 ilaa 28 in taariikhda ay kala dheeraato haddaba aan qeexno taxriifka miilaadiga ama shamsiga hay anaku hijrigu wuxuu ku shaqeeyaa waa qamari waa bisha dhalanaysa ayaguna qorraxda ku shaqeeyaan ميلاده هو النبي عيسى دلشديس marka tacriifkeedu waxa weeye almuddatu allati tastaghriqu al-ardu
في دورانها حول الشمس أرضها وحي كوريجيسا دورار كذي وريج قرحضة إلا النقطة سيدا هي قبل المسيح وقبل المسيح مركي إلهي أبو ري هرتل سيدا أشقين كده أشقين إسا قرحضة كنت الوريجيسا أقولكم كنت الوريجة هي قرحضة مدة أي بلاوتين ونبي عيسى دلشديسي وكل شيء هذا شيء فاطمة مريم بنت عمران هذا شيء مدة أوي مدة تاريخ أسود بلابنيسو مركا لبدا عيدودا أيوة إليه ونيروس أو تدكي دبك عابدو الشري طبشت كاسونا ودن كالصوماليا وكتشري سببها كانين وحوي ما داوا عربتا أنكو صومالي هدانا حدود أن لا لأنهاي waxaa laga gudbi jiray mandab baa laga soo gudbi jiray oo carabtu dhanka Afrika ayay u soo safri jireen ayagoo xaalado kala duwan kale sida foolmaroodiga iyo shabeelka iyo haramcadka haragooda ukunta gorayada baalka gorayada oo markaa doonyaha looga dhigi jiray baalaha iyo waxyaalaha ay ku socoto doonyaha shariica lahaa malabka alwaaxdan waaweyn fooxa iyo meydiga iyo waxyaalaha la isku udgiyo sidaa darteed dhaqamadii carbeed ee asalka laga soo manguuriyay Ruum iyo Faris oo carabtu ay hoos imaan jireen dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaan ay hoos imaan jireen safaradoodii iyo tijaarigoodii iyo maraakistii ay ka fureen Soomaaliya yaa waxay keentay inaan dhaqankii iyo taasiirkoodii aan qaadano kuna dhaqanno kabacdi diinta islaamka Soomaalidu markay ay qaadatay asxaabta labada jeer ay soo hijrootay dhaqankii dabshidka sidii buu u jiray marka laakiin waa dhaqan ka yimid dadkii dabcaabudka ahaa iyo boqoradoodii مهرجانكنا waxa weeyaan waa Christmaska ay gaaladu feestooyinka ay sameeyaan لو سألت على الناس بتاريخ الإسلام أو شهر قل من يعرف ذلك هذا ويديسد ضدك ضمانته تاريخ الإسلام كإنتبه مريسا أما بلهان واتي بشان قف قرانا هيا ومعرفة أولي محايا لي ما دام مشار أن لو قادن وحكو توقفه أي سكيرتي حق عبادة ما أنا وحكله أيها فرح لك قادن لسويديني حيا لي تاريخ الإسلام تكون تحت الرماد وحين نغطي دمبسك هوستيس وحكو جرا تاريخ الإسلام عكس ما نراه وحنركي ندير النصارى والمجوس وغير ذلك سطر الذي يضع عالمك لقوبة هنا أيوه ولقو الشيخة هي سنة كوضة يدل الشضو سيدا درتد علماء التاريخ وحي ليهن بلهان هذا اللبية طبنكا مشاركة اللغوغات واسماء الشياطين ولكن waxay leedahay maya waa asnaamtii iyo wixii la caabudahay magacyadooda qorana waxay leeyahay maya waa boqoradii la caabudahay qorana waxay leedahay maya waa iyagoo wada socda yaa iska leh على taxal waa in dadku islaamka taariikhdooda ay la socdaan og yihiin ku baraarugaan waxay diinta islaamku ay ka qabto taariikhda islaamka iyo waxa ku soo degay iyo tangaaladu meeshay ka timid iyo qaabka ay bulshada caalamka islaamka ay kaga dhaadhiciyeen dhamaantiin marka wayna salaamahayaa culumada afkeeda anoo ku hadlaya waa Cabdiraxmaan Aadan Cali Yare oo kamida culumada Soomaaliyeed aad iyo aad baan inii salaamahayaa bahda miidiyaha iyo bulshada Soomaaliyeed ku baraaruga taariikhdiina iyo dhalashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh